Asalaamu calaykum. Soo dhawaada. Muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa maxaa sababa in cunugii uu caanaha la siiyo uu soo celiyo ilmaha yaryar ee ka yar ilaa iyo 7 bil 8 bil ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan li'aana 8 bil cunuga hadduu ka weynaado inta badan waxaa la arkaa cunugii inuu kasoo fiicnaanayo kale. Marka maxaa sababa in uu cunugii caanihii la siiyo kale wixii aasi sidoo kale uu soo celiyo ma ahan mataga caadiga ah laakiin waxaa waaye diliqaan xadkiisa ka badan oo kale oo cunugii waxaasiisi wax fiican uu soo celiyo aragtid matagna aan ahayn. maxaa sababa ayaa muuqaalka kaga hadli doonaa. Waxaana jirtay gabar abaayo ah oo asxaabta kamid ah oo tiri kasoo hadal maxaa sababo maxaas lagu daaweeyaa. Muuqaalka marka taasaan kaga hadli doonaa insha Allah inta xad inaan soo kooban isku daya. Marka soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddii hore aan ula joogtaan waa asxaabta kamid tahay in like noo saar asxaabtaadana u sii share garee. Ilmaha waxaa lagu arkaa cunuga ilaa iyo 7 bil uu ka gaarayo 6 bil 7 bil uu ka gaarayo ayaa lagu arkaa in uu soo celintan uu sameeyo caanihi la siiyo kale cunuga uu soo celiyo ama naas nuug ha noqoto ama caano caadi ah uu sii noqoto inuu soo celiyo ayaa la arkaa ilaa iyo cunug 6 bil 7 bil uu ka gaaro laakiin mar hadduu 7 bil gaaro uu ka fiicnaadaa. Marka soo celintan midna cunugii wax yar oo diliq camal oo uu soo celisha ilmaha qaarna ilaa iyo xogo fiican ayay soo celiyaan oo hooyadii murug gelin karo. Marka wax dhib ah miyaa mise ma ahan wax dhib ah caadi ahaan soo celintan wax dhib ah ma ahan li'aana cunuga calooshiisa aad ay u yar tahay oo ma qaadi karto wax badan. Marka waxaa wanaagsan hooyada haddii cunuga soo celintiisa ay badan tahay oo kale inaysan said u dharjininin ama cunuga markay caanaha siiso kale inay cunuga barkin u dhigto markay caanaha siinayso haddii korka saari karto gacanteeda ay ku qaban karto cunuga qoortiisana way kasii fiican tahay li'aana markuu cunuga asoo inta caanaha siisid oo kale hore ka seexisid calooshiisa way yartahay meel isla egan seexsid oo kale aadan barkin u dhigin cunugii maadaama calooshiisa ay yartahay oo wax yar ay tahay unugyadiisa calooshan dhamaan aysan dhameystirmin xagga korinshaha cunugu way u fududahay inuu hore ka soo celiyo. Laakiin cunuga markuu barkin ku jiifo kale xogo ilaa xad uu fiican yahay waxaa kasii qurux badan cunuga markaa naas siisid oo kale ama caanaha siisid oo kale inaadan hore ka seexin oo kale oo cunuga inta xad ah oo inaa kor u haysid oo kale oo isku dayid oo kale inaa cunuga garabka saaraysid oo kale ka dhigtid oo cunugii wax yarna tartiib maadaama cunug 7 bil ka yar uu yahay kale inaadan said dhabarka kaga garaacin laakiin wax yar oo meel dheer ah oo kale inaa cunug dhabarkaas ka siisid oo kale ilaa ay xad caanihi ay ka degi karaan oo kale ayaa wanaagsan. Okay caadi ahaan mushkila maahan ama wax badan soo celisho ama wax yar soo celiyo horta wax dhib ah ma lahan laakiin goormee la dhihi karaa dhib ayay tahay. Okay goormee tahay in hooyada ka walwasho ama ay ka naxdo soo celinta caanaha cunuga uu soo celinayo. Haddii soo celinta iyo calaamadahan aan soo sheegi doono ee la socdaan cunuga markuu caanaha soo celinayo ama diliqiisa uu kale hadduu badnaayo kale uu soo celintaas calaamadahan ay la socdaan markaas oo kale dhaqtar caruureed la raasatid waaye oo xal la raasatid. Marka maxaa waaye calaamadahan waxaa ku kamid ah soo celinta cunuga caanaha uu soo celiyo kale haddii kalar uu la socdo caanihi nadiif aysan ahayn oo kale oo kalar la socdo watan koowaad tan labaad oo kale cunuga markuu soo celiyo hadduu ooynayo ooyin uu leeyahay oo kale tan saddexaad waxaa waaye cunuga markuu soo celiyo kale in xagga neefta cunugii inay ku yartahay oo kale ama ku adagtahay aragtid oo kale tan u dambeysana waxaa waaye cunuga saxaradiisa inuu dhiig soo raaco haddii cunuga saxaradiisa dhiig soo raaco haddii cunuga in neefta dhibaysa aragtid oo kale haddii cunuga ooyin uu leeyahay haddii caanihi uu soo celinayo kalar ay yeesheen oo kale markaas oo kale okay soo celinta caanaha ama diliqii wixii way ka badan yihiin oo cunuga wuxuu u baahan yahay dhaqtar caruureed inaad la kulantid oo cunuga dhakhtarka uu arka ayuu u baahan yahay. Laakiin haddii isna calaamadahaas la soconin soo celinta haba iska badnaato ilaa xogaha soo cesho hadduu rabo laakiin haddii isna calaamadahaas la socon wax dhib ah ma lahan oo wax culays cunuga ma lahan ma ahan inay hooyada ka walwasho laakiin haddii calaamadahan ku aragtid fadlan isku day dhaqtar caruureed cunugii geysid oo dhaqtar caruureed la kulantaa. Marka caadi ahaan ilmaha 6 bil 7 bil markay soo gaaraan inta badan way ka fiicnaadaan calooshiisa xogaa korinsho ayay sameysay unugyadiisa iyo caloosha waxay sameeyeen korinsho marka waa la arkaa in laga fiicnaado. Marka cunuga marka caanaha sidoo kale cabaar garabka ku soo haysid waa inaa meel barkin oo 30 digrii camal kor u qaadan cunuga ku seexin kartaa. Okay marka intaasaan kusoo gabagabeynayna waxaan rajeynayaa abaayo su'aashiina soo weydiisay inaan kaga jawaabno komentiyadiina waa arkaa oo inaan kasoo jawaabo isku daya laakiin waxaa dhacdo in muuqaalada inta badan ay duuban yihiin oo kale inta badan muuqaalada ayagoo diyaarsan ay duuban yihiin oo dhagis bis ay rabaan waqti aan u lahay
oo marka maxaan lahaa markaan soo dhigayo kale in hal video aan ku soo daro oo markaas aan duubo aan ku soo daro ayaa la arkaa markii aan jaanis u helo marka haddii su'aashaadii oo maxaan lahaa inaan kasoo hadli aragtay ee dib u dhacdo kale fadlan iga raali noqo qof mashquulkiisa badan yahay ayaa ahay oo maxaan lahaa jaanis fiican aan ahayn oo fiidiyoyada kale maxaan lahaa 2 isbuuc ka hor aan laga yaabaa inaan diyaariyo wixii maalmaha soo socda aan dhigi lahayo kale maadaama maalin kasta inaan fiidiyo diyaariyo aan jaanis u haynin marka iga raali noqda insha Allah laakiin waxaan isku dayaa in ay intii su'aalihiina ay soo weydiisan intii xad aan kasoo hadli karo oo aad ka wada faa'iideysan kartiin qof kasta wixii culays ku ahay ayuu ku weydiinaa inta xad aan kasoo hadli karin aan kasoo hadlayo isku dayaa insha Allah si idinkana aad kaga faa'iideysatiin hooyooyin badan ay kaga faa'iideystaan oo dhibkaasna nool u aamusan si ay kaga faa'iideystaan marka insha Allah hali cudur daara mashquulkayga badan dartiis muuqaaladana inta badan ee dhacdayna 2 isbuuc ka hor aan duubay markaas oo kale wixii aan isdhaho kale tan oo kale emergency waaye oo ku dhex dari kartaa hadda inta duubtid oo kale halkan muuqaal oo kale isku dayna waqti u shido duub oo muuqaalada ku dhex dar marka qaar way dhacdaa oo kale marka insha Allah waan dadaala inta xad inaan kasoo jawaabo marka uu calaamado wato waaye soo celinta marka calaamado wadato markaas ay tahay hooyada inay ka naxdaa haddii cunugu kale markuu soo celiyo kale oo inuu naqaska dhibay aragtid in cunugii saxaradiisa ay ka dhiig la socoto kale in cunuga markuu soo celinayo uu ooyo kale soo celintaas inuu kalar la socdo kale caanihi saafi nadiif aysan ahayn oo kale markii calaamadahaas ku aragtid ayaa waxa dhici kartaa okay soo celinta caanaha cunuga okay waa wax mid dhibeyso waa cunugii waxaan dareemaa inuu caafimaad qabin oo jiran yahay aan dareemaa markaas waa dhici kartaa oo markaas dhakhtar waa la raadin kartaa laakiin haddii cunugii wax mushkilad ah uusan ku qabin oo kale uu soo celintaas caanaha kalarkooda aysan isbedelin oo aysan la socon cunugii inuu naqaskii iyo maxaa la neefsashadii markuu soo celinayo ku adagtaa aadan arkin in saxaradiisa dhiig la socdo aadan ku arkin oo kale wax dhiba ma lahan waa wax caadi ah waa wax ilmaha ay ka siman yihiin hab ku kala badnaadaan wax dhiba ma keenayso marka intaas ayaan ku soo koobi doonaa soo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeyso aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyoyada cusub ku soo gaaran hadaa horan u joogtaan like noo saar asxaabtadan u sii share garay soo dhawaada